السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكون نقض ونكسن. I think عشركينا دا صوت دافني وحنا كسو قادنا the simple present أنا جوك سوسارينا ها إما أما yes and no questions. So today وحنا أقول قلينا I think إن دميان جعل هاي topic كان أما chapter كاتري مركب وحنا أقول قلينا the simple present اللي عن جوجنا present time كا أنا جو رمنا إنا we ask information question with where حاجة وانكسو هذا لني. So هذا waxaan ka hadlaynaa the simple present asking information questions with when goorma when and where labadaba galaynaa. Then we do a summary about the questions with be and do. Okay, kan sorry waan ka hadalnay raali noqda. Topic waxaan aadaynaa about when the simple present asking information questions with when and what time goorme iyo waqtigee حاجة when goorme and what time وقتجee waan guda galaynaa. Feel free. When do you go shopping? When do you go shopping? علامة سؤال على صوت صاري. goorme when goorme do you aadaysa go shopping? What time do you go shopping? waa laba shay oo hal su'aal weydiinaysa laakiin laba qaab u kala weydiinayso. Waxaa lagu yiri when goorme do you go shopping? What time waqtigee do you go shopping? Okay, let's see. So horta W when and what time waxaa la yiraahdaa keywords. Keywords means question words. Waa ereyada su'aasha sameeyo ama su'aasha lagu sameeyo. So keywordkii haday cashirka hore markaan soo qaadanay yes and no questions waxaan ka bilaabaynay su'aasha do and does aan qaadanaynay oo auxiliary verb kan qaadanaynay. Laakiin hadda maxaan sameynaynaa question word and auxiliary ku daraynaa kadib main verb kan u dambaysiinayna. Let's see. Keyword do and does plus subject plus main verb. Example, when do you go to work? When waa keyword ama su'aal u dhalaya waa keyword ala when why what whom who waxyaabahaas ku leeyahay waxaad ku dhaha keyword. When do you go to work? goorme ayaad aadaa shaqada? So you can say marka you have to be very keen. Si fiican u fiiri dib maskaxda ugu noqo. Cashirka horaan soo qaadanay do iyo does markaan ka sameyno do you or does he yes aan dhihi jirnay ama no aan dhihini. Laakiin kan maxaan dhahaynaa straight jawaabtaan bixinaynaa. When do you go to work? goormeed aadaysa shaqada ama goormeed aadaa shaqada? At 8 o'clock. labadii subaxnimo ama labadii aroornimo. What time do you go to work? waqtigee ayaad aadaa shaqada? At 8 o'clock. So maxaan arkaynaa when and what time have the same meaning. Okay. When does he exercise? goorme ayuu jimicsiga sameeyaa? At 10 o'clock. afartii subaxnimo. At what time or what time does he exercise? waqtigee ama saacadee ayuu exercise sameeyaa? At 10 o'clock. You see? Okay. What time do you usually go to class? So do you marka subject usually waa frequent adverb la soo qaatay yani xilligu soo noqnoqodka la fiirinaya. So what time do you usually go to work? waqtigee ayaad inta badan classka aadaa? So subjectigi ay waxaan ku darnay frequent adverb kadibna main verb aan raacinay. wax micno kama bedelin yani jumlada micnaheedii laakiin frequent adverb aan soo qaadanay. waan dhihi karnaa what time do you go to class? usually waan ka saari karnaa laakiin what time do you usually go? يعني waqtigee ayaad inta badan lagu yiri aadaa classkaaga ama fasalkaaga. Okay, let's do some exercise. Does the pool close? So meeshan su'aala ka maqan laakiin jawaabtu waxaa lagu yiri the pool closes at 6 p.m. So does the pool close? goorme ayay xirmaysaa lagu yiri. So maxaan dhahaynaa when ama what time does the pool close? Pool waa meesha lagu dabaasho ee baraagta biyaha. So when goorme ama what time waqtigee does the pool close? ay poolka xirmaysaa? The pool closes at 6 p.m. 12 oo galabnimo ay xirmaysaa. Dash do you eat lunch? When ama what time do you eat lunch? So bracketka ereyga la geli ama bil xir bil fur lagu xiray wuxuu yahay labada inay isku mid yihiin. When haddaan dhaho iyo what time haddaan dhaho su'aasha way dhammaystiran tahay. ama when do you eat lunch aan dhihi karaa ama what time do you eat lunch aan dhihi karaa laakiin jawaabtu waa isku mid. I eat lunch at 12. qadada waxaan cunaa 12kii duhurnimo. So inta jawaaba lagu sii su'aasha laga rabaa.
I usually go to bed at 11. I usually go to bed inta badan aniga waxaan seexdaa. Go to bed waa waxaan sariirtayda tagaan seexdaa at 11 p.m. يعني shantii habeenimo. So su'aasha maxay noqonaysaa? When ama what time do you usually go to bed? Because usually gan waxaan ka keenay halkan intay ka socotaa. Okay. Let's do a summary. Summary-ga marka waxaan daaxiraynaa maanta hadduu Allah awood leh ka raali noqdo waxaan xiraynaa chapter 3 dhan waa ma soo xiraynaa maanta hadduu ilaahay raha. Okay, keyword plus be plus subject long answer. Where is Botswana? Where is Botswana? So haddaan ku iri when iyo what time haddaan soo qaatay keyword-ka wixii WH ka bilowda ayaa waxaa la yidhahaa keyword waa where, when, what time, why, whom, which, all those wixiiba WH ka bilaabanayo. So where is Botswana? Botswana waa xagee? Botswana is in Africa. Botswana is in Africa. Botswana waxay ku taala Africa. Where are your gloves? Where are your gloves? Gloves kaagi aaw. Gloves ka gacanta la gashto. They are at home. They are at home. Long answer lagu jawaabaya. Yes and no maaha. Tan waa you are asking for information with be and do. Okay? Be verbki iyo verbkan qaadanayna laakiin time do aan soo qaadan doonaa. Let's see. When is lunch? Qadada waa goorme? When is lunch? Lunch is at noon. Waa lixda. Lunch is at noon. What is your name? Adiga magacaa lagu yiri. What is your name? My name is Uma. Magacayga waa Uma. What time is the movie? Movie-gu waa goorme ama filmka goormuu soo galaya? The movie is at 5 p.m. or at 5. Movie-ga wuxuu soo galayaa 5. Movie waa film ama filimka la daawanayo. Okay, where does she live? Xagee ku nooshahay? So do and does aan soo qaadanayna. That's why we said be aan soo qaadanay haddana aan do u qaadanayno. Where does she live? Xagee ku nooshahay? She lives in Belgium. She lives in Belgium. So haddaan ku dhaho where does she live? Jawaabta waxay ka bilaabanaysaa she lives. Tana waxay noqonaysaa because waxaan soo baranay verbka oo ku xiga third person pronoun inuu s qaato. She lives in. So where the in lagu jawaabaya in Belgium. She lives in Belgium. What time does school start? The school starts at 9 a.m. wuxuu bilaabanayaa labadii ama saddexdii aroornimo. What time? Waqtiga ayuu schoolka bilaabanayaa. What does she play? Maxay ciyaaraysaa? What does she play? Ama maxay ciyaartaa? Does she? She plays tennis. What does she play? Maxay ciyaartaa ayada? She plays tennis. Waxay dhashaa tennis. Tennisku waa kubadda gacanta ee tenniska ama bahalka yarka ee shabaqa la isugu tutuuro la isugu gagamo. When do you study? When do you study? I study at night. Waxaan akhristaa habeenkii. I study at night. Okay, let's practice. So is, are, do and does haysataa. Where does they buy food? Where do they buy food? Where do they buy food? What time does the train leave? What time does the train leave? When does your test? When is your test? When is your test? Gorma waaye imtixaankaaga. What does their names? Plural waaye. What are their names? What are their names? Magacyadooda maxaa waaye? Tani kulantada xiiso leh waa noo dhamaaday chapter 3. Allaha awoodda leh ayay mahaddaasi u sugnaatay. Tani kulantada xiiso leh fadlan intaan ka bilaabayna cashirka chapter 4 waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.